xayeysiinta xalay qabatay Apple waxay ku shaacisay 4 dhagax oo iPhone 14 ah kuwaas oo aan wax badan dhaamin dhagaxaantii ka horeeyay marka laga reebo dhanka design-ka sare oo lagu dhibay Apple inay iska dhaafto dhaarna ku martay inaanay dhaafayn iyadoo ku dhufatay magac cusub oo ah Dynamic Island. dhanka kale waxa la socday dhagaxaanta saacad dhuuman oo dhaxyar waa siday sheegeen taas oo dhiigaaga iyo dhaqaaqaaga baad kula socon karto. dhanka kale inta waxa dheeraad gashi ama AirPods aan wax badan dhaamin kuwii ka horeeyay marka laga reebo inay dhowr boqol oo dollar ka qaalisan yihiin. aynu nimaadno dhanka iyo dhagaxaanta ama iPhoneska ay soo saartay oo ah afartan iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro iyo iPhone 14 Pro Max. afartan taleefanba waxaynu ka hadli doonaa waxay ku fiican yihiin iyo sidoo kale waxyaabaha aanay ku fiicnayn. aynu ka bilowna haddaba dhanka design-ka waa halka ay ka dhinteen taleefanadani sababtoo ah taleefanadani waa la design kuwii ka horeeyay waxna haba yaraatee kagama duwana tusaale ahaan iPhone 13 halkay shirkadaha kale taleefanadu isku dayayaan inay soo saaraan design cusub. iPhone waxay u socotaa dhanka kale waxa ugu weyn ay ku soo kordhiyeen waa dhanka notch-ka sare inay yareeyeen. sidoo kale taleefanadani waxay ka dhinteen dhanka qiimaha taasina waa mid lagu yaqiin shirkadda Apple oo taleefanka u jabani waa kan oo ah $800 balse dhibaatada ugu weyn waxay ka timi inay u xadideen featureska iyo farsamooyinka ku cusub taleefanada qiimaha sare. tusaale ahaan taleefanada iPhone 14 iyo 14 Plus waxay leeyihiin features ka yar marka loo eego kuwa ka sareeya qiimo ahaan ee 14 Pro iyo 14 Pro Max. sidaana waxay u sameynayaan si ay u yeelaan gaab ama kala duwanaansho una fududaato inay si fudud u iibiyaan taleefanadan. sidoo kale wax laga xumaada ah inay liiska ka saareen taleefankii ugu jabnaa uguna yaraa uguna fiicnaa bayn odhan karnaa taleefanada iPhone ee iPhone mini kaas oo ahaa saaxiibka dadweynaha ahaana taleefan fiican. inta haddaynu kaga nimaadno waxyaabaha ay ku liitaan taleefanadani aynu u nimaadno waxyaabaha ay ku fiican yihiin oo fara badan. tusaale ahaan dhanka kaamarada oo ay hadeer ku soo kordhiyeen kaamara cabirkeegu gaadhayo 48 megapixel. dhanka kale waxay ku soo kordhiyeen taleefanadan features aad u muhiim ah. tusaale ahaan hadeer waxaad la xiriiri kartaa satellite-ka ku dul maraya si aad fariin u dirto waa haddii aad joogto meel aan lahayn carri amaba aad luntay oo aanad haysan wax dhaata ah ama lacag aad kula hadasho qof waxaanad isticmaali kartaa satellite-ka kuugu dhow adiga oo u diraya wixii fariin ah ee degdega ama emergency ah. balse si aad ula hadasho saaxiibka uma isticmaali kartid satellite-ka mana noqon doono feature-kani mid bilaasha marka laga reebo 2 sano ee ugu horeeya. aynu nimaadno dhanka display-ga waxaynu odhan karnaa taleefanada Pro-ga ah ama Pro Max-ka waa laga dhisay. tusaale ahaan dhanka iftiinka oo haatan waxaad ka dhigan kartaa 2000 oo nit waana iftiinka ugu sareeya ee shaashada taleefanada haatan heli karto adiga oo ku isticmaali kara meelaha leh iftiinka faraha badan tusaale ahaan dibadda leh cadceedda faraha badan. sidoo kale waxay ku soo dareen always on display oo aad si fudud uga socon karto haatan shaashadaada fariimaha kala duwan adiga oo aan shidinba taleefankaaga amaba uu ku xidhan yahay log. intaana waxa kuu sii dheer iOS 16 oo ah operating system-kii ugu fiicnaa abid ee ay soo saarto shirkadda Apple kaas oo ku ogolaanaya inaad wax badan ka bedesho dhanka design-ka kana dhigan karto taleefankaaga qaabka aad doonto adiga oo wax ka bedelaya dhanka midabada ama sawiraanta iyo widgets-ka ama saacadaha. sidoo kale taleefanadan Pro-ga ama Pro Max-ka ah waxay leeyihiin Dynamic Island oo ah notch ama muraayada halka sare oo ka yar marka loo barbar dhigo taleefanadii ka horeeyay ee iPhone 13. dhanka numberska ama tirooyinka taleefanada Pro-ga ah ama Pro Max-ku waxay ku shaqaynayaan mishiinka cusub ee A16 Bionic kaas oo ah mishiin iska fiican wax badanna si aan kaga duwanayn mishiinkii ka horeeyay ee A15 Bionic. wixii dheeraad ah ee numberisa waxaad ka dhigan kartaa haatan muraayada. ugu dambeyntii isma dhaafno saaxiibayaal.